markii gurigiisa aan ugu tagay amiin si diiran ayuu ii soo dhaweeyay isaga iyo qoyskiisuba ugu horeynba waxa yaab leh kaydka sawir gacmeedka gidaar walba gurigiisa suran biladaha iyo suugaanta uu ku foogan yahay dhageysigooda oo gabaya u badan amiin waa nin sheeko badan wuxuu mar walba carabka ku hayaa Soomaaliya iyo siyaasadda aan deganayn ee ka taagan waxaan gudagalay ujeedadii ugu horeynbana waxaan weydiiyay damaca dawladda Itoobiya ee ku aadan Soomaaliya taas oo mar walba uu diiradda saaro Itoobiya Soomaaliya daacad uma haddii daacad tahay Itoobiya Soomaaliya intaasoo sanay ku dhex jirtay dawlad weyn waay oo Soomaaliya lamid ah way isku keeni kartay maanta waxaad dareemaysaa Puntland heshiisay la tahay Somaliland heshiisay la tahay inay weligeed iskuma keenin ee gacmaha isqabsada ma dhahin inay kala sii fogeysay mooy marka qof kastoo wadani ah ama dareen wadani ku jira uu dareemi karaa in Itoobiya aan maanta ay waxba noo qabaneen inay Soomaaliya kala qaybiso mooy Soomaaliya isku soo macnaha dan ugu jirto Soomaaliya isku soo dhawaato si iyaga aragtidoodii marka waxaan u arkaynaa cadowga Soomaaliya inay tahay qof kastoo Soomaaliya aan uu dareemi karaa in Soomaaliya cadowgeeda Itoobiya aragtida la mid ah waxa buugiisa halgan iyo hagardaamo ku daabacay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo buugiisa ku yiri sidan Itoobiya waxay danaysaa inay dalka ka dhismaan maamulo yaryar oo aan midnimadoodu yeelan karin awood ay boor kaga jafaan siyaasadii Soomaali weyn oo ah laf dhuunta kaga taagan Itoobiya cutubka uu madaxweynuhu buugiisa kaga warramayo siyaasadda dhabta ah ee Itoobiya ayaa marag cad u ah sawir gacmeedyadii uu wax badan Amiin Caamir ka soo saari jiray dawladda TFG Amiin Caamir nin talent hashaan uu soo masiiray ana ku ooyay baan ku dhahay macnaha meeshu ka hadlay iyo wuxuu u hadlayo gadaalu ka hadlay Amiin Caamir nin gaari karo oo wax qora maba jiraba waa nin talent oo adag weeyaan oo aan waliba mabdiisa la gabanin oo mabdiisa meel walba ka cadeynayo ka sheegay marka ilaahay ha noo daayo Amiin Caamir ilaahay waxaan ka bariyaa ilaahay meedkiisa ilaa noo soo sheegin ilaahay cimri dheer ha siiyo waa u duceynooyaa Amiin Caamir waa farshaxanka ugu caansan Soomaaliya waana kartoomaystaha ugu gacanta fiican ee farshaxanka ka faalooda siyaasadda Soomaaliya waa aabbaha laba wiil iyo laba hablood waana shakhsi firfircoon oo jaaliyadda Soomaalida Kanada ka dhex muuqda dhowr sano ka hor waxaa soo baxay filim bilad soo hooyay oo ka warramaya farshaxanka Amiin Caamir waa kan directorka filimkaas oo u warramaya producerka Maxamed Daahir Throughout the course of the film Amiin actually mentored a young boy who was kind of going off on the wrong path, trying to steer him in the right direction. So if we take a look at the trailer, we can see that in action. ciyaalkii halkaan keennay oo noo halkaan aan ku korin oo aan fursadahan helay oo fursadihii meel ku dayacay oo iigana meel ay ku sugan yihiin aan dadkooda haysan xataa friends got me really corrupted got me to do stuff that I was not supposed to I've seen a lot of people get shot and I don't want to be seeing myself in that position maadaama iskuulka cunug uusan habi ku ahayn waxaa laga yaabaa inaan ku fiirin waxyaabahan inuu jeclaado oo masawirkan iyo waxyaabaha kun iyo 960kii guugii caanka ku noqday gobonimada siyaasadeed ee qaaradda Afrika ayuu Muqdisho ku dhashay Amiin Caamir yaraantiisina wuxuu iskuulka ka bilaabay xaafadda Shibis macallimiintiisii dugsiga ayaa judhiiba dhaaday oo dareemay hibada gaarka u ah wiilkan ee huma qaadashada iyo sawir gacmeedka waalidkiisuna waxay aad ula yaabeen da'diisa oo yar iyo sawir gacmeedkiisa oo ka fil weynaa markaas ayayna kula taliyeen inuu dib u dhigto wax sawiridda waxaan horta ku dhashay magaalada Muqdisho 1960kii waxaan iskuul ka bartay isla Shibis ayaan ku dhiganay barbaarinteedii adiga anigoo yar ayaan horta sawirka leegu arkay dhinaca farshaxanka markaan ka hadlo marka waxa igu dhiirin gelin jiray aabahay iyo waxa jiray wiil walaalkayga oo isna wax sawiri jiray oo adiga hal sano iga weyn aniga ataa tartan noo socday xaafadda markaan joogno guriga kale iskuulka markaan tagno aniga mashquul waxaan ku ahaa
inaan sawirada sii kordhiyo iskuulka xataa waa liigu yaqaanay sawirka maalin waxaa jira iskuulada ee leeyihiin xaflado oo ama iskuulada markay soo dhawaadaan in la xiro iskuulada xafladahaasi marka waxaa ahaa ninka kaliya loo yeeri jiray oo samayn jiray sawirada intaan iskuulka dhiganayay ardada markay wax ku maqan yihiin for example duruustoo kale aniga waxaan isku dayaa macalinka inaan sawiro wejigiisii siduu u eg yahay inaan mashquul ku noqdo anoo waxbarashada wado dhanka kalena artskan aad u jeclaa oo marka sidii aan ku soo barbaaray galab jimcaad isaga oo amiin dhulka dhuxul wax ku sawiraya ayaa waxaa la soo joogsaday ergey uu soo diray ustaad raashiyaana halkaas ayayna ka bilaabatay xikmaddu marka waxaa jirtay maalmaha jimcahoo kale ayadeeda oo degan xaafad kale ayaa waxaan u qaadi jiray dhuxusha leegu dhiibi jiray dambiil dhuxula ee dhihi jiray ayadeeda u geey dhuxushi marka dambiishan kusoo wala soo lugeyn jiray marka waxaa ku taale magaalada muqdisho qofka soo xasuusto marshbiido dhul waaweyn oo xooga aan dadka meelaha dadka ku socdaan ah oo aad u qurux badan oo dhulka shimeynti yahay dhuxushi inaan la fadhiisto meel leer markaan helo galbihii waa ayaan dhuxushii inaan qaato xabadda soo baxo ayaa wax ku sawiri jiray galab walba oo jimco ay tahay sawiraan marka macnaha isku maaweelin jiray intaan nasanayo marka maalin waxaa dhacday meeshaan wax ku sawiraay marka hal meel ayaa u badnaa in mar walba wax ku sawiri jiray meeshii waxaa deganayeen qol ajnabi ah oo ruush ah ayaa meeshii deganayeen ninka ruushka marka jimco walba wuxuu iga daawadaa daaqada kore marka waa nin professor ah oo arts ka dhiga waxaa loo keenay ninka marka dambe aan isbaran doonaa waxaa loo keenay ciidamada ayuu wax u samayn jiray sawiro iyo waxyaalaha oo xerooyinka lagu sawiro ayaa loo keenay ninkii yaa marka maalin wuxuu ii soo diray shufeerkiisii wiilka yar meesha wax ku sawiraayo ii keen anoo marka dhulka u fadhiyo wax sawiraayo ayaa ninkii iga dul yimid oo yiri soo bax waxaan u qaatay marka ninkii inaan dacwad leewadoba oo meeshaan waxaa dhuxusha ugu qorqortay leeyahay ninkii aan iska bariyo war hadda masaxa anaa tirtiraayo wixii dhan anaa hadda kaliinka dhigaayo markaas ninka wuxuu leeyahay war wax lagama rabo ha tirtirin ninkaana ku rabo soo dhageyso anaa kuu tarjumayo soo bax anuu yaraan marka ninkii leegay ninkii wuxuu yiri si fiican u sawiraysaa waa fiican tahay anigana waxaan ahay macallin artist wax dadka bara ka waran haddaan ku baro kasana waan rabaa inaan barto markaas bari waalidkaaga keen aabahaaga ama hooyada qofkii jooga oo keen anuu faraxsan ayaan ka soo baxay dhuxushiyan geeyay maalinta aabahayaan soo kaxeeyay aabahayaan u keenay aabahayaan loo sheegay in iskuul meesha ku yaalo ciyaalka wax lagu baro iskuulka marka waxaa dhiganaysay ilaa 10 qof oo adiga 2 gabdhooda ku jiray iyo 8 wiil anigoo ku darsoomay 12 aan noqonay ardada marka waxaa la hor fariisinaa nin walba wax ayaa la hordhigayaa wixii sawir wixii marka ina qiyaastii sida u keenaysay wax rabo inuu arko ardada iga dhex saaray marka kalaas kale oo kor ayaa leegay oo 2 nin kaliya wax lagu bari jiray anaa 3 ku noqday marka waxay ka dhigan tahay kuwaas waa ka soo gudbay ana waa isku level money level kala leegay oo ana marka waxaan aad u xiiseenaa ina kalarka ranjiga sida loo mariyo inaan gaaran raba ninkaan qalinkii noo bilaabay qalinkii aan wadnaa maalin walba qalin la sameeynaa laabiskii macnaha qalin qorigii aan wax ku sameeynaa aniga waa degdega marka waxaan leeyahay qalin qorig hormay laga gudbaa macallinkii raba inaan weydiiyo macallinka markaas uu leeyahay kan ilaa heerka aan rabo markaa gaartiin ayaa u gudbaysiin halkii alhaas ninkii ruushka ahaa sida meesha iskuula joognay oo waqti dheer ardadii qaaraa ka baxday iskuulka qaaraa iska tagtay adiga waxaa ku haray aniga iyo gabar caasha la dhihi jiray ashkaaraan in la dhihi jiraa umaleynaa magaceeda ma xasuusto waqti hore ay ugu dambeysay yaa ku harnay kadib gabadhii waa la guursaday way ka baxday aniga iyo macalinka isku harnay hatta ardadii kale oo levelka naga hoosay hatta way ka wada baxeen macalinkii saaxiib baan noqonay aadan saaxiib hatta mar xerooyinka oo ka shaqeeya isaga ayuu ii kaxaysan jiray gacan yaro kale oo dhigi jiray hoosh bilow adiga anaa ka saxayo wixii qaldanta samee
sidii marka u bilaabnay sidii aan geesinimo u geliyay adiga nin wuxuu ahaa oo aad markino oo inuu wax ibar ka muuqatay oo jecel wadiga muddo markaan ka soo shaqeeyay waa waqtigii waxa la gaaray oo wadanka Ruushka laga saari jiray ninkii sidii uu marka wadanka ka tagay shaqadiisii marka ayaa aniga la wareegay wuxuu ka shaqeyn jiray maalmo qaar wuxuu ka shaqeyn jiray wakaalada madbacada qaranka ayuu wuxuu ahaa ninka kaliya artist-ka u fadhiya meesha ana meesha tagay oo meesha lagu qoray wasaaradda warfaafinta asla xukuumadda madbacadii iyo kulli isla xilliyadaas Amiin waxa uu ku biiray wargeyska Xiddigtii Oktoobar wuxuuna soo saari jiray sawir gacmeedyo lagu bilo qormooyinka arrimaha bulshada ee wargeyska muddadii uu warsidaha ka shaqeynayay waxa uu ku yeeshay magac dheer wuxuu sidoo kale marar badan ku mutaystay xariid kadib anoo meesha jooga ayaan waxaan la shaqeyn jiray wargeyska Xiddigtii Oktoobar waxaan bilaabay marka kartoonka inaan ka sameeyo arrimaha bulshada for example waxaan sameyn jiray kartoonada oo dhibaatada dadka haysata for example koronto la'aanta meelaha biyaha fariistaan waxyaalahaas aan soo qori jiray marka shaqadii kale dhinacaan u batay oo xagga oo journalka marka waxyaalo badan oo sportiga wax ka qori jiray hadii badi waxay ahayd arrimaha bulshada waxa ka ciyaaraha si gaar ah kooxaha u xiiseeya marka qoraal ahaan waxa laga yaabaa koox in laga badiyo markaas waxa laga yaabaa roob doo ama in cadceed qorax aad iyo aad kul ay meeshaas ka jirtay marka waxa laga yaabaa in qofku inuu yani uu ku muujiyo yiraahdo maanta xareed baa la cabsiyay ama kooxdaasi qoraxda kulaato oo waa dhaqaaq weyn kooxda kale oo ku carartay iyo iyadoo loo soo qaadanay sawir ahaan oo sawir gacmeedka farshaxan lagu soo gudbinayo sawir gacmeedyadii xilliyadaas caanka noqday waxa ka mid ahaa sharoobada goolka oo ah ciyaar xiisa badan oo dhex martay laba kooxood maalna waxa ciyaartay madbacada iyo Muqdisho markaas madbacadii laga badiyay oo macna goolal badan looga badiyay marka sawir waxa jira xusuus la oo dadka Soomaalida aad u xusuustaan oo aan ugu magac daray sharoobadii gool macna madbacada la siiyay sharoobadii la siinayo oo goolka badan loogu dhaliyay Amiin Caamir sawirada uu dartood xabsiga ku tagay waxa ka mid ahaa sheekadii dhex martay Rahi Kogaarka iyo kii shaqaalaha oo sidii uu u fakarayay si ka duwan ayaa loo fasirtay sawirkiisii rahan ka soo qaatay meelaha biyaha fariis raax laga mooyay moogta rahiya marka biyaha fariisan jiray marka waxa la sameeyay wadadii waxa la sameeyay oo Kogaar ayaa wax loo sameeyay meel biyaha galaan oo aan biyo fariisaneen waxa la iloobo marka halkii kale oo guriga shaqaalaha meel ku taale marka si aan u xasuusiyo dawladda ka saarsan si aan u iraado waxaan sameeyay marka rah oo macnaha ka soo socda dhinaca hodon number 4 ka yimid oo soo socdo Kogaar iyo qaar Kogaar ka soo baxay oo biyo soo waayay iska hor yimaadeen xagee ku socoteen waxaan ku soconaa Kogaar biyaha meesha fadhiya markaas kuwa kale leeyihiin war biyo meesha waa la hagaajiyay shaqaalaha biyo fadhiya nageeya ani marka ujeedadeedu waxay inaan u tilmaamo dawladii xagga saarsan waa macnaha journalkaas jimciyo soo bixi jiray waxaan isku dayay jiray bal inaan wacyi gelino ama aan waxa loo yaqaano daliilka toosinta ku sameeyay hay'adihii markaa jiray oo dawliga ah oo dawladda ka caankayd marka waxaan wariyo iloobin markuu nagu soo biiray Amiin Caamir qayb laga siiyay safxad laga siiyay kaliya safxadaas karikateer bay ahayd annagoo markaas dhaliilayna wakaaladii xoogga korontada Soomaaliyeed eenaya ayuu waxaan wariyo iloobin karikateerkii markaa uu ku fasiray wax qabad la'aanta markaa ka jiray xagga koronto siinta wuxuu sameeyay korontooyinkii iyo xargihii magaalada Xamar ku faahsanaa ee ballaarana ee laga filayay inay dab soo gudbiyaan oo qofkii taabtan uu ku dhimanahay oo dumarkii Soomaaliyeed ay ku waranayaan dharkii taabicineedu waxay tusaysaa qof kasta halka ka fiiriya in wakaaladaas wixii loo idbaday ay sameeyeen Amiin waxa uu wareegay dhinaca xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed wuxuuna qayb ka ahaa farshaxankii Soomaaliyeed ee qurxin jiray bandhiga xisbiga Jaale Maxamed Siyaadna waxa uu igmaday ama soo doortay in Amiin Caamir oo kaliya sawiro muuqiisa kadib waxa lagu soo wareejiyay xisbiga
xisbiga Hanti Wadaag waxay lahaayeen meel lagu sameeyo boorarka waaweyn marka waxay hoostageysay xisbigaas aan u shaqeyn jirnay marka xisbigaas waxay sameyn jireen boorarka waaweyn oo magaalada lagu dhijiyo badi marka boorarkaasi waxay tilmaamayeen waxyaalaha kacaanka rabo in dadkii uu sheego fikradihiisii iyo mabdigiisii waxaas ayaan wax ka sameynaynay boorarkaasi iyo sawirada Maxamed Siyaad oo kale oo marka dambe waxaan noqday ninka kaliya oo sameeya Maxamed Siyaad sawirkiisii marka waxa ku noqdayna waxay ahayd waxyaalo waxaan ku dari jiray oo qurux badan si ayaan waxaan ka dhigi jiray in daadiisa xoogaa aan ka soo goyn jiray daayar qurux badan sidaas uu ku arkay sawiradeedii marka uu yiri ninkan la sameeyay hadda kadib sawirada wixii aniga wajigayga ku saabsan sidaas aan ula wareegay adiga waxa jiray waxyaalo badan oo aan ka soo shaqeeyay waagii gacaankii oo waxa jiray October kala hadda 22 October waxa jirtay baawuro waxa jiray dadan oo October ay soo mari jireen marka hay'ad kasto hal baawur ay diyaarsan jirtay oo ku ana lagu muujinayo wax qabadkoodii 1979 Amiir Caamir waxa uu dhoofay wadanka Ruushka halkaas oo waxbarasho dhanka farshaxanka ah muddo 4 sano ah ku soo qaatay markii uu wadanka ku soo laabtayna waxa uu abaabulay bandhig farshaxameedyo kuwaas oo markii dambena Kenya qaarkood uu ku qabtay hadday noqoto ruwaay hadday noqoto filim hadday noqoto sheeko hadday noqoto farshaxan hadday noqoto qurxan hadday noqoto xasuus hadday noqoto ayn kasta oo warfaafinta ah wuxuu ka ahaa xibin culus oo haddaanu nahay hoobalada waa bari gaar ahaan haddaanu isku ahayn wasaaradda warfaafinta haddana hoobalada waa bari qayb libaax ku lahaa ama xasuustiisii Amiin Caamir taariikhdiisa lagama sheekeyn karo intii taqaanina waa taqaan intaan aqoonna waa loo tilmaamayaa Amiin Caamir wuxuu ahaa geesi ku aanbaxay farshaxanka gacanta ama qofkii oo taagan inuu masawiro ama filimkii wuxuu ahaa iyo siduu ekaa inuu masawiro Amiin Caamir taariikh wuxuu ku lahaa wargeysyada ama wararka ay dawladda marka ay faafinayso ninka darbiyada laga akhristo ahaa oo sheega wuxuu ahaa Amiin Caamir ninka marka riwaayad la dhigayo ka sheekeeya riwaayada iyadoo qoraal ah sanadkii 1983 isagoo iskiisu abaabulay ayuu Amiin ka qayb galay tartankii farshaxanada qaaradda Afrika halkaas oo ay ku baratamayeen farshaxano ka kala yimi 40 dawladood maalintaas Amiin oo ugu daayara dadkii tartamayay waxa uu ku guuleystay kaalinta labaad sheekooyinka xiisaha badan waxa kamid ah tii dhexmartay Amiin iyo gudoomiyihii gobolka taasoo ku salaysnayd sawirka madaxweynaha waxyaalo cajiib ah soo dhaxmaray waxyaalo badan hadda waxa jiray mar baan waxaan tagay gobolada Soomaaliya kamid ah marka ninka gobolka haystay ayaa wuxuu ii dirsaday sawirkii madaxweynaha waagaas madaxweynaha waxa ka ahaa Maxamed Siyaad marka wuxuu yiri Maxamed Siyaad oo beerihii oo gacmaha u taagayo ii sawir marka waxaan sawirey Maxamed Siyaad oo beerihii ku sii jeedo oo gacan sida u haadinayo marka dhinac markuu qofku u jeeda hal il kaliya la arkaa ninkii gobolka haystay marka sawirkii dhameeyay oo wuxuu u weydiiyay war ishi kala aaw yiri odaygu marka saade odayga dhinac u jeeda markuu dhinac u jeedo hal il kaliya la arkaa markuu soo jeeda labada indho la arki karaa ma yiri wallahi inaan ka siisanayn waxa haddii labadiis indhood aan waayo bari waa xiranta u yiri markaas sawirkii dib ugu noqday inaan soo jeediyo odayga oo sidii traffic camal halka u jeedo oo gacantana halka ku haadina marka qofka markuu meesha tilmaamayo inuu eega fiican ka sokeeyayga dagaal ka sokeeyayga inuu tabayaqa yeesho dadkayga maxaa u diiday dadkayga maxaa u diiday darkaar werintii abwaanka darkaar werintii abwaanka baroortii laga dhigayay maxay tugaydeedu yeedhay
maxay tugaydeedu yeedhay amiin markii burburku ka dhacay waddanka Soomaaliya adigu waxaad ahayd farshaxaniiste weyn oo waddanka Soomaaliya joogay muddana ka shaqaynayay markii burburku dhacay halkeed joogtay seese waddankii uga soo baxday maxaase ugu xiiso badnaa aad xusi kartaa shaqooyinkii intii jabhadaha iyo waddanka burburka uu iskaga jiray waxyaabihii aad qabatay bal sheekadaadii halkaa nooga sii wad waa mahadsantahay cabdirashiid horta markii burburka dhacay waxaan joogay Soomaaliya magaalada Muqdisho habeenkii oo qaraxa bilaabanayo oo magaalada isku rogmanaysay waxaan joogay National Theatre riwaayada socotay riwaayadaasi ayaan daawanaynay marka waxaan maqlaynay qaraxyo aad u xoog badan oo magaalada ka dhacay dadkii marka dareenkooda dhan wuu kacay habeenkaasi ayay naxdanta noogu bilaabatay iyo dhibaatada marka habeenkaas waan joogay Muqdisho kadib waxaa magaaladii qabsatay jabhadii USC waddankii uu ka baxay madaxweynihii Soomaaliya dhibaatadii markaas ay sii xoogaysatay intaan magaaladan joogay magaalada Muqdisho markii habeenkii saqda dhexe markii la gaaray aday dhibaatadii oo sii kordhayso guriyihii la isku galaayo iyo boobkii aa bilowday magaaladii meelihii dowladda hay-adihii dowladda la boobayay oo adiga magaaladii dadkii qaarna way ku faraxsanaayeen qaarna way ka naxsanaayeen marka waxaan dareemaynay in dhibaato xoog leh soo socoto wakhti yar kadib amiin caamir waxa uu madaxa farshaxanka ka noqday wargeys xiliyada ka soo bixi jiray xamar oo la odhan jiray Shabeelle Barays kaasoo uu madax ka ahaa Cusmaan Xasan Weheliye tifaftiro guudna cilmi mira Jimcaale wargeyskaasi muu lahayn sawiro laakiin waxaa mar walba bogga hore lagu soo sawiri jiray sawir gacmeedyada amiin oo bulshaduna aad u xiisayn jirtay sawiradiisii caanka noqday waxaa ka mid ahaa matoor qori la saaray qabyaaladda oo salaanka u goysay nabadda guryaha iyo gawaadhidii oo isku haysta laamiga iyo Cali Mahdi Maxamed oo ku dhex wareeray mujaahidiin iyo siyaasiyiin daraabtan xamarka baxay dhaqaaqiyaan ka baxay dhaguhu xabad bay maqaan dhawaaq kaleema markii nabaddii fogaatay geyigii Soomaaliyeed oo dhammina colaad noqday ayuu amiin caamir go'aansaday inuu dalka iskaga baxo wuxuuna galay safar dheer oo aan nasasho lahayn xasuustiisii ugu dambaysay Soomaaliya iyo sawirkan caanka noqday iyo waddamadii midba midka uu dhiibay haynooga warramo 91 bishii dhammaadkeedii ayaan ka baxay magaalada Muqdisho markii dagaaladii oo ciidiid iyo Cali Mahdi si xun u dagaalamayeen marka waxaa dhacday inaan ka baxo magaaladii oo waxaan u dhoofay aan baawur ku baxay waxaan gaarnay dalka Itoobiya sidaan ku galay Itoobiya waxaan dhaxmarnay meelo badan adiga jidkii inta sii soconay dhibaatooyin badan xataa mar baan baawurkii oo soconay dariiqii habeen ayaan meel aan geedo badan ku oo hal geed kaliya ku yaalo weyn ayaan istaagnay marka habeenkii meeshaan barin aan seexanay subaxdii markuu waaga baray ayaa dhinac laga yimid iyo dhinac loo socdaa la kala garan waayay dariiq aan ku soconay 2 saacadood aan dib u soo noqonnay dariiqaan qabsanay markaan tagnay doolo waxaan sii joognay saacado maalmo kale haddana waxaan tagnay meel la yiraahdo Nageyle Boran yaan tagnay oo Itoobiya ku taal waa ka sii baxnay waxaan tagnay Addis Ababa markaa muddo joogay ayaa dhibaatooyin badan iyo shaqo la'aan iyo lacagta jeeb ku jirto way ka dhamaanaysaa cid wax ku siinaysan jirin marka Soomaaliyeedna soo wada qaxday oo nin walbo intii yar oo isku ilaalinayo jeebkiisa ku jirto sidaan ugu dhaxnooleen kadib waxaan helay dad Yemen u socda diyaaradda Yemen aan raacay oo Yementaan tagnay Yementii markaa muddo joogay oo meeshii shaqo la'aan ah kadib waxaan helay company oo warshad leh oo company aad u weyn ah warshado badan leh oo marka waxay lahayd qayb wax sawirta oo soo artistiyaal oo wax sawira oo qayb ka tirsanay ahayd qaybtii aan ku beeray ayaan muddo ka soo shaqeeyay kadib dagaaladii markay dhaceen
ayaan ka soo gudbay Yemen waxaan ku soo noqday waxaan dooni ka soo raacay marka meel la yiraahdo meel gobol ka mid ah Yementa waxaan u soo baxnay marka Eritrea imaanay Eritrea waxaan joognay dhowr habeen kadib waxaan u soo gudbay Addis Ababa waan joognay Addis Ababa markii oo dhibaato badan aan aragnay haddana xoogaa markii Yemen ka soo laabtay xoogaa lacagaan iska haystay oo aan ku soo galay Addis Ababa inta ku noolaay xoogaa iskaga mooday marka dambe waxaan aragnay ani iyo familkaan ahayn kooxdii durdur oo yaa degneed Addis Ababa marka waxay rabeen inay show u tagaan Djibouti marka dhaheen horaan ku kaxaysanayna niyo waxaan rabnaa inaa nagala qayb gashid showgaasi oo sawiro noo sameeyay durduraan soo raacay Djibouti imaanay Djibouti marka xoogaa markaan joognay durdur way dib u noqdeen aniga marka waxaan go'aansaday inaan Djibouti iska joogo sababtoo waxaan arkay dhul Soomaaliyeed dadkii Soomaaliya af Soomaali lagu hadlaayo oo wixii aad wadankayga ku haystaa marka dad Soomaali oo la dhaqmi karsid ayaan ku arkay meesha isla xilliyadaas ayuu Amiin Caamir carwo uu ku iibinayo sawiradiisa ku qabtay Jamhuuriyadda Djibouti lacagtii ka soo baxdayna waxa uu ugu deeqay shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee carta xilliga uga socday barnaamij oo waxa la soo bandhigay dawladda Djibouti soo bandhigtay inay shirku qabanayso Djibouti oo Soomaali lagu heshiisinayo marka anigana aad baan ugu farxay maadaama aan Djibouti joogo oo wadankayga dib loogu heshiisinayo soo Djibouti dhexdeeda oo anigana aan kamid ahay dadka dhageystayaasha ama dadka qaybgalayaasha inaan wadanka ku noolahay marka waxaan marka maskaxdayda ka soo saaray inaan wax aan u tiri karo Soomaali aan u taro wax alla waxay noqoto inkastoo aan qaxooti ku ahay hadana meesha laakiin dadaalkayga inaan laba kordhiyo oo aan waxaan u qaban karo wadankayga aan qabto waxaan ku fikiray marka inaan waxaan wadanka u tiri karo maxaa kamid ah waxaan irin bal farsamadaada bandhig ku sameey oo musawir badan diyaari lacagta ka soo gasha ku caawin dalkaagi macnaha inta waxay iga tahay wadannimo iyo wadanka jaceelkiisii iyo dawladnimadii iyo wixii aan rabaa inaan helno waxaan go'aan ku gaaray marka anoo qaxooti ah inaan wadankayga u raadiyo lacag oo aan ugu deeqo dawladda Djibouti si aan gogoshii Djibouti dhigayso aan gacan ka geysto maadaama Soomaali ah waxaan isku dayay marka bandhigii inaan sameeyo waxaan u yeeray safaaradihii wadanka ku noolaa hay'adihii UN-ta wax alla qof kasta oo macnaha dadka ganacsatada bandhigaan sameeyay bandhigii macnaha alxamdulillah waxay noqotay ilaa $150,000 markii la sarifo lacagta Djibouti lagu iibinayay faranka Djibouti markii la sarifay waxaan gaartay ilaa $150,000 Amiin Caamir oo hadan kan caawihi hadii guusha inta laga gaaray 9 milyan hadii caaw kaliya la ururin karay oo gudidu ay kartay ay awooday in lacag inta lagu 9 idin kaliya la helo sababta isaga ayaa iskala waayo isaga ayaa ku deeqay ugu deeqay walaalihiisa Soomaaliyeed sawiradii ilaa 40 badooda oo halkan lagu iibsaday caaw sanadkii 2000 ayuu Amiin u dhoofay wadanka Canada wuxuuna markiiba ku biiray wargeys ka soo bixi jiray magaalada Toronto oo la oran jiray Somali Price kadib markaan Canada imid waxaa dhacday inaan isku dayay shaqooyin inaan oo xagga farshaxanka ah inaan shaqooyin aan ka raadiyo wadankii marka si dadkiina ay baran lahaayeen macnaha shaqooyinka artist wuxuu kamid yahay waa ko in lagu bartaa markaas aad macnaha wax ku heli kartaa ama shaqooyin ku heli kartaa ama laga iibsan karaa sawiradaada
marka wiil aan saaxiibnaha marka isku aragnay Canada magaalada Toronto markaan isku aragnay markaas wuxuu yiri wargeys oo waxa jira ka soo baxa Toronto oo Soomaali ku soo baxa ina qayb ka qaadataan oo wixii laga helo aad wax ka hesho marka nala shaqeey sidaan wargeyska u bilaabay oo kartuuna u sameeyay jiray oo siyaasadda Soomaaliya ku saabsan sanadkii 2004 ayuu si rasmi ah Amiin waxa uu ugu guuleystay inuu dhidibada u taago jariirada online-ka ah ee Amiin Artist taas oo muddo koobanba gudaheed aad loo bartay. His political cartoons posted online attract more than 1 million hits a month. 2006 wuxuu sii noqday caan wuxuu sii gaaray meel walba oo dad walba inay ka daawadaan siyaasadda soo sawiran marka sawirka sidiisina waa ma aha macnaha in aad sawir qurxoon kaliya aad samaysid waa inuu wax gudbiya farshaxankiisa badanaba Amiin waxa uu diiradda ku saaraa arrimaha siyaasadda ee waddanka Soomaaliya waxaana uu si gaar ah u xushaa mawduucyada waaweyn ee sida tooska saameynta ugu leh aayaha ummadda waxa uu wax ka sawiraa madaxda sare ee waddanka doorashooyinka dastuurka ciidanka maamul goboleedyada xajirnimada musuqmaasuqa iyo hoggaanka gacanta u galay shisheeyaha oo mararka qaarkoodba aqoonyahanku ay muran galiyaan siyaasadda guud ee lagu hago dalka Soomaaliya. It is time that those who are leading in this country and those who are playing a leading role in Kismaayo. marka waxaan la yaabay war ninka kan Somaliland fikirkiisa lagama jecla yaa uga soo warrama Puntland fikirkiisa lagama jecla yaa uga soo warrama dawladda federaalka fikirkiisa lagama jecla yaa uga soo warrama Jubaland lagama jecla fikirkiisa yaa uga soo warrama wax kasta oo waxaan ku dhici doono oo Soomaaliya siyaasadeeda ku soo wuxuu samaynayaa ka hor ayuu sheegayaa wixii marka su'aasha aan inta badan soo daa waxa tahay ninka kan yaa wuxuu soo sheegay dadkan wanted buuba ka yahay meelaan ka soo warramayo waa dadka ugu nacab waa dadka u hanjaba waa dadka caaya waa dadka u dhaarta haddana waxa madaxtooyadooda ka soo baxaya intaanay soo bixinin caawa Amiin Caamir uu og yahay uuna soo saaray su'aashaas oo kale ayaa maskaxdayda ka guuxaysay intii aan xog wareysanayay Amiin Caamir laakiin arrin weecsan weeyaan inaad wariye kala weydiiso halka uu xogta ka helo taa beddelkeeda waxaan diiradda saaray inaan u kuur galo bal sida uu u shaqeeyo Amiin Caamir ugu horeyntaba waxa uu xiriir la leeyahay siyaasiyiin iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed kuwaas oo si cad uga warrama dhacdooyinka ka taagan geeska Afrika inta kadibna waxa uu xiriir la sameeyaa dhinaca bulshada oo yaalaba waxa uu ku xidhan yahay wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada inta kadibna waxa uu tifatiraa xogtii uu helay ugu dambayntana waxa uu soo saaraa sawirrada daawataan marka waxa jira dad dhibsanayo waxa sameynaysid sababta dadka ani inacab maanta waa dadka dulmiga jecel marka ma aha dad qofka dareemayo waxaan wuxuu yahay macnaha uu ku qanacsan yahay laakiin kan icaaya ama waxaan dhibsanaya waxa arkaysaa runtan sheegaynaa suxufiga runtuu sheegaa bari macnaha runtana waa qarar tahay Amiin Artist waa qof Ilaahay talent siiyay waxa waaye maxay ahayd wiil Soomaaliyeed waxa waaye oo ka hadlayo Ilaahayna fursad siiyay ka hadlayana talentigiisa buu ku fasirayaa his opinion iyo maxay ahayd current news iyo waxa hadda socdo wuxuu ka hadlayaa maxay buu sawirayaa oo aragtaha noo tusinaya marka anaga waxa naga rabaa in aragtidiisii oo anaga naga dubneed bal inaan hadana il gaar ahaan ku fiirino oo soo dhaweeno baaniga ila tahay haddaan ka jawaabo sida dadka u qaabilaan anigoo nin dhalinyaro ah ku soo koray qurbaha aad iyo aad siyaasadda Soomaaliya uma danayn jirin mana aqoonin laakiin waxaan isdhihi karaa waxyaalaha ugu horeeyay oo itusay introduction ama faahfaahin kooban waxa weeye farshaxanka Amiin Caamir maxaana keenaysa wuxuu ku tusayaa sawir ah waqti munaasabad adduunka 24 saacadood 60 daqiiqadood ku dhex jirta saacadiiba mid ka mid ah wuxuu freeze gelinaya ama istaajinaya marxalad waqtigaas ka mid ah sawir gacmeedka Amiin Caamir anigu waxaan ka aaminsanahay horta
de waan ka helaa oo aad baan uga helaayo ama aan ka dhibsado ama aan dhibsan mar walba laakiin waxaan qirayaa inuu sameeyo wax bulshada ka dhex soconaya oo dareen damul jadiid waxa uu farshaxanku uba arkaa inay yihiin koox dantooda gaarka ku ilaaway dantii qaranka waana sababta uu sida gaarka kooxdaasi ugu bidhaansado damul jadiid waxaan ka dhex aragnay dad kooban oo kaligood leh rabaa inay noolaadaan oo aan shacbigii waddanka u dhashay waddankii inaan danka lahayn ayaga intoodii kooban ayay inay noolaadaan ayaan ka dhex arkay marka dareenkaasi dad badanna waa ila qabaan oo Soomaali ka mid ah qofku wax dareemi karana waa u jeedaa sidoo kale wuxuu kartoonkiisa garab ku siiyaa bulshaweynta Soomaalida cadaaladda midnimada horumarka bahda warfaafinta iyo fanaaniinta adnimadu nagama tagin Soomaalidu ma dabargoy dul xariiraba zaada cali warsame ayaaba ka mid ahayd fanaaniinta uu sida weyn ula dhacsanaa amiin sababtu maxay tahay ima muuqata aniga saada cali kuma amaanin codkeedii iyo quruxdeedii iyo ama si kuma amaan waxaan ku amaanay qarannimadeedii gabar qaran waxa saada cali waxaan isbaranay muddo aad u dheer ka hor adiga waqti dheer ayaan isnaqaanay inta aan aqoonay waxa ka muuqatay qarannimo wadan jacayl gabar wadaniye ahayd marka waxaan mar walba aan u taageeri jiray aan ku amaani jiray qarannimadeeda inkasta oo amiin dhamac iyo daba ka shido siyaasiyiinta Soomaalida haddana waxa ay yeelatay taageerada uu siiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu bogiisa ku soo sawiray isagoo xambaarsan qalinkiisa kana mid ah shacabka taageeraya ra'iisul wasaaraha Farmaajo waxaan ka dhex aragnay daacadnimo iyo qarannimo marka aniga iyo islaanta suuqa fadhida oo caanaha iibinaysa qoryaha iibisa odayga suuqa jooga oo magaalada ka shaqeeya wuxuu ku taageer ayaan ka dhex arkay aniga marka isku aragti ayaan nahay anigoo maadaama aan ku hadlayo oo codka bulshada iyo waxa wadanka qofka wax u tari kara wadanka qofka daacadda ah marka taasi ayaa ii geysay inaan dadkaasi aan si gaar ah u fiiriyo marka hada dad baa isweydiiyay xataa amiin xisbiga tayo ka mid yahay oo xisbiga Farmaajo ana xisbi aan ka mid ahay ma jiro waxaan ahay codka bulshadana dhinac ma raaci karo 15 sano oo amiin caamir degan yahay wadanka Canada waxa la guddoonsiiyay bilada badan iyo abaalmarino la xiriira shaqada uu qabto biladahaas waxa ka mid ah bilada Human Rights oo sanadkii 2013 uu ka mid noqday 6 qof oo ku guuleystay amiin abaalgudyadan maxaad nooga sheegi kartaa yaasa ku kala siiyay intooda badan waxa horta ugu weyn abaalgudkan oo waxa siiyay Human Rights okay hadiya hay'adda xuquuqda aadanaha adduunka kaasan ku qaatay waxa ku xigo Arts Cultural award waakan waxay siiyeen Seminar Centerka okay hadiya waa xarunta dadka soo galootiga ee weyna Canada iyo kuwa kale aad u fara badan waan u jeedaa badanna waa jiraan qaarkood ay xageeyeen aadiyaad waxa u badan inta Soomaalida siisay aadiyaad dhamaantood marka waxay ka maqraati kacayaan inay dadweynuhu kaaga maqraati kacayaan hawsha aad sameeyso saas waa manaha waxay dhiirigelinayaan wax aadiyaad markaan helo waxaan Soomaalida ku taageeraan waxaan dareemayaa inaan wax weyn qabto jaamacadda Alberta ee wadanka Canada waxay bishii Abriil sanadkii 2011 albaabada u furtay farshaxanka Amiir Caamir isagoo halka ku soo bandhigay farshaxankiisa waxayna jaamacaddu umuurta ku tilmaamtay dhacdo qiimo badan magacaygu waa Xamse Xamed Guuleed hadda waxaan ku suganahay magaalada London arday ah dhigta siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda fikirkayga ama aragtidayda ku saabsan Amiir Caamir waa farshaxan Soomaaliyeed hadba sawiradiisa ku kooba xaaladda taagan ee Soomaaliyeed haddii deegaan noqoto haddii gobol noqoto haddii qurbo noqoto haddii gudaba noqoto inta haddaan sii dhaafo wax qabadkiisa san anigu arkay ama uga faa'iiday waxa ka mid ah sawiradiisa oo maadaama haddii aan dhigto arrimaha dibadda aan soo qaadano aan leeyahay xaaladda guud ee Soomaaliyeed arday ahaan aan soo qadan jiray jaamacaddii qofka farshaxanka ay si walba uu uga duwan yahay dadka kale maxaa yeelay waxa dareenkiisa yaalaaba ku barxan midaba dhameystiran oo yaab leh
muddo ku siman 25 sano ayuu Amiin Caamir qurbaha joogaa. ugu dambeyntiina waxaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan qurbaha. qofka qurbaha jooga horaaba loo yiri macnaha dalaada lahayn dareen ku joog markii qurbaha aad joogto waxyaalo badan aad tawaysaa oo dalkaagii macnaha hatta ilaahu ma noqdo hatta weatherka maartay hawada dalkaagii ma helaysid meela ku dhalatay oo kale macnaha si kuma noqon karo meesha joogto laakiin wadankan xogaa waxaan dareemeynaa xorriyadii waxaan dareemeynaa sida doonta u hadli kartaa mana cid kugu qabsanaysa ma leh wixii qaldanaa sheegi kartaa macnaha afka lagama xiraayo xorriyadaas macnaha intaas haysanaa laakiin qofka wadankiisa uu u baahan yahay mar walba meeshuu ku dhashay dadkiisii iyo dhaqankii wax walba u baahan tahay marka meel waxaa baday aan joognaa oo Soomaalida dhibaatada ka haysta waxa waaye marka wadankaaga joogtid hatta subaxdii markuu waaga bariyaa salaada maqlaysaa waxaa maqlaysaa af Soomaaliga meel kasta ka yeeray marka joogtid kan diriskaaga hadda waa arkaysaa gurigayga banaankiisaan fadhiyaa kan jaarkayga ah islama fadhiisano islama sheekaysano gacmaha iska salaanaa bis waa la islaafaa laakiin marka wadankaaga joogtid kan diriska garab fadhiya kan xaafadda kan saddexaad guriga saddexaad ayaa gurigaaga jooga hortiisii ayaa sheekaysanaysiin marka dhaqankii ayaa ka maqan iyo dabeecadii dadkii waxyaalo badan aan dareemeynaa inkastoo aan haysano xorriyad macnaha nolol fiican nabad wax walba aan haysano haddana mar walba waxaad jeceshahay inaad dadkaaga la noolaato. Amiin Caamir waa nin ana taariikhdiisa soo sheegi karin laakiin taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda ninna madiido ninna madoonto ninna madiito ninna madoonto runtay dir ka qaada taariikhdu ayadaa iscadaysa ninna ma qoro marka one day maalin maalmaha ka mid ah ayaa xasuusta Amiin Caamir ilmihiisa iyo ilmahay dhalay ilmahay si dhalaan bisnoonihiisa lagu xasuusan doonaa taariikhda iyo halka uu ka joogo farshaxnimada marka waxaan leeyahay Amiin I wish you all the best.